هوي هوي معانا هوي معانا ما غنجرا هوي واقول كيس والله بالله سلي قانا معي هي هوي دونوي كوجبو نحتا ويقيلي كعنا علي تعمل اسكير دي كما ضربه Hello, Edu. Hello. Wallahi, bin What's up, everybody? This is your boy Kamal Breezy, and this is Hamd, and we from HC Media Production. saan ognahay noloshu way iska amuuro badan tahay dhalinyartuna waa ubax soo baxaya wadankooda waxaasoo u baahan inuu helo ilaalin ka warhayn iyo qof ilaaliya soo markuu weynaado waxaasi u yeesho udgoon ama caraf badan qofba sidoo u yaqaano dhalintu aan aniga kamid ahay markaan dhalin yar leeyahay marka waxaan ula jeedaa gabar iyo wiilba dhalinyartuna sanadahan dambe noloshooda wuu sii casriyoobay saan la wada socono wadankeena hooyo Soomaaliya wuxuu dagaalo ama qalaas ku socdaa muddo 22 sano ah qalaasa soo sababay in dhalinta waayaan waxyaabo badan oo ay taanka ay waayeen waxyaabahaas badan oo sii sababay in dhalinteena iska bedelaan waxyaabo badan dhalinyarta sanadkan jirta wiili gabdhaba waxaan u kala qaybinay labadaas oo ah kuwa rajo helay oo rajadii ka faa'iideystay iyo kuwa rajo sugiyaal ah markaan la rajadii helo waxaan ula jeedaa qof helay fursad wax ku barto ama fursad qof dhaqaale ilaa waa dhawiil dhalinyar ah waa u bixi aan sheegaynay wuxuu u baahan yahay ilaaliyo wuxuu helay fursadii waa qofkaas aan ku mataalnay qofka fursadda helay ama rajadii helay oo ka faa'iideystay kana jisugaha waa ciyaalka xaafadda waa kan aan weli helin saaxiibkiisa kale kan rajada helay wuxuu helay oo sugaya ama ku haminaya waxa uu saaxiibkiisa helay inuu helo kaasina adigina tahay laga yaabo anigina waa laga yaabo dhalinta rajo sugiyaasha ah waa dhalinta sanadkan jirta oo aan weli heran jadii aan sheegnay hadda dhalintaas oo aan u kala qaybinay saddex qaybood anaga u kala saarayna wiilal iyo gabdho Number 1, ma fikiri marka leena waxaan ka wadaa kan aan fikirin mustaqbalkiisa iyo aakhiradiisa habeenkii dhafra maalintii ku darsada salaadii ka taga ilowsan noloshiisa u maleeyo inuu ku jiro happy life. Number 2, matashte waxaan ka wadaa qofka ra'yi ku degdega oo aan talada ka qaadan saaxiibkiisa kula yimaada talo markaad u sheegtay inuu ku dhaha taladaada kuma haysto brother is high. Number 3, kudayde waxaan markaan leeyahay waxaan ka wadaa kan aan nafsadiisa ku kalsoonayn kuna dayda qofka ibni aadanka dhinac walba like ha noqdo style ha noqdo dhinac walba oo la dhihi karo qofka ibni aadanka ku qanacsan nafsadiisa. Number 1, taada ma yeesho oo ah marka tala siisid taladaada ma qaadato marka ay taladeeda ku dhaqaaqaan horumarku ma gaarto. Number 2, teeda ma bixiso tusaale ahaan gabadha markay keensato wiil ama wiil ay aabiyaashan waalidka ku faraxsanayn oo wiilkaas la iska dhaaf ay ka bacdi gabadhii diido ay ku dhaqaaqdo ra'yigeeda. Number 3, keentay kuma horto oo macnaheedu ah gabadhii loo diiday wiilkii xumaa ama wiilkii ay waalidka ku faraxsanayn oo markii raacday wiilkii uur loo soo yeelay uurkii markii ku soo noqotay xaafadda waa ogtahay waalid weeye gabadhiisa uur leh ayaa xaafadda imaatay soo wuu ka horeeyaa wuxuu ka sameeyana ma aqaan gabadhaasi caloosha loo soo buuxiyay. Alright, that's all we got for you today. Dhammaadkii waa kaaga mahadcelinaa waqtigaada gelisay videoga aad fiirsatay. I hope you enjoyed the video, right? Yeah? waxaan ku leeyahay subscribe to my channel-kan. Oh, wait, man. Oh my God. And wait, man. You know the best Please. Ask it. You know, we cool, you know? أبا عايز كلمة